وحولها يا رسولك صلى الله عليه وسلم ذنوب إلهي لا قال وحا أقوى وإن كمنا وحا ويه رجل ننا قرسنية ناكتا مرو كحاجة قلتو أو كل راعيستو أو وحا ويه كشها وقلتو قبضها فرية أو مهل كذي كلا تغيي هدانا والذنوب تلقلو أو إله أكتي كو أقوى وين مكلتها إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها ضلقها وذهب بمرها هي waxu kala tagay waa meelkeedii markuu raaxaystay oo waxa weeye gabarnimo ku soo guursaday ama ku soo guursaday waxa weeye galobnimo laakiin sa jirkeedii waxa weeye ibada ku raaxaystay ku shaawo gutay markaas oo furaya haddana wuxuu kala tagay meelkeeda waa kuwa ila agti waxa weeye ugu dambeeyay badan ugu dambeeyay cusubay haye raggeenu maanta waxay u bateen anigoo waxa weeye adinka maanta kali aan kala jeedin laakiin ragga oo ay tahay waxa weeye haweenka inta la guursado lagu istimtaaco haddana waxa weeye meherkooda lala tago meherku waa gabadha xaq ay leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey wuxuuna dhahayaa sala allahu calayh wasalam shardi la fuliyo waxa ugu xaqnimo badan waa waxyaabaha furuujta gabdhaha aad ku banaysteen weeye dumarka furuujtooda wixii laynkugu baneeyo weeyaan haye maanta yaa gutaan waxa weeye nagu jiraba waxa gutaan nagu yar gabadha waa la guursan waa la furayaa haddana mid kale la goobo haddana xaqii lama siinayaba wala allah ka baqa subxaanahu wa tacaala raggiina waxa weeye waa ceeb adigu aad leedihiin in badan adinka kamid ah ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku u naxariisa maahane gabdhaha xaqooda hala siiyo oo xaqooda yaan lagu tumanin waxuu nahaya sala allahu alayh wasalam allahuma inii uxariju xaqa daciifayni alyatiimi walmar'ati haye allow xaq baan daba dhiga oo waa dembiile weeye axadka gelaya xaqa adoonka iyo gabadha xaqeeda gelaya haye kan gabadha masaakiinta xaqeeda gelaya inta fura ku raaxaysto jirkeeda marka waxa weeye si noqdo oo furayo ka waxa weeye waa dembiile oo waxuu dhahayaa sala allahu alayh wasalam xaq baan daba dhigay war allah ka baqa subxaana wa tacaala midda kale ayada ugu badan waxa weeye ninba waxuu ku dhahayaa shiikow anoo xanaaqsan ayaa islaagtaydii furay haye markaad tiraa meeqaad ku furta maxuu ku oran 3 ayaan ku furay haye waxa weeye waan furay hadda waxa weeye gabadhii ma ii xalaalba oo ma ku laaban karaa waxaad moodaaba waxa weeye kitaabka allaba in qolo gooni loo xisaarayba kitaabkan waxaa loo soo dejiyey waxa weeye in ummadda lagu dhaqo ummaddu isku hogaamido qof kastana uu barto weeye waxa diintiisa waajibka u ah qofku waa inuu barto weeye waxuu dhahayaa allah subxaanahu wa tacaala waxaa lagu tilmaamayaaba inta ninku inta haween furo ku laaban karo aw dhihi karo waxa weeye waa soo ceshtay 2 goor weeyaan adalaaqu marataan fa imsaaku bimacruufin aw tasriixu biixsaan haye allah subxaanahu wa tacaala waxuu ku dhahayaa dalaaqu 2 weeye oo axadku haweenta uu qabo haweenta uu furo ku laaban karo 2 goor weeyaan marka saddexaad uu furo waxa weeye haweentaasu ninka u bay sugi inay soo marta mooye kuma laaban karo aye marka waxa laga rabaa gabadha inuu si fiican u haysto hadda waxa weeye gabadha mustaqbal ka rabo oo uu sa ku cayaaraynin oo allah uga baqaya subxaanahu wa tacaala wa inuu gabadha muslimadda ku cayaar u haysto aw tasriixu bixsaan haye ama haddii kale way heshii waayeen oo gurgiyaa lagu dhaqmi waaye gabadha si waxa weeyaan nidaam ah u sii daayo ninkii laha goobatee oo waxa weeye yuusan qashaadan weeye meherkeeda ha siiyo si fiican ha u sii daayo warragow marka waxaa laydin farayo waxa weeye waa waxa ay maslaxadiinna ku jirto ninku haweenta hadduu furo ee dalaaqaduhu ay ka wada dhammaadaan fa in dallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdi xataa tankixa zawjan hayru haye ninkaasu nagta inuu u laabto uma bannaana ilaa ay nin kale ka soo marto ninkaasu oo waxa weeye ay isgaaraan waxa weeye labada farji kadibna ay si waxa weeye keligooda u kala tagaan haddana marka waa ku laaban karaa waa hadday labadooda waxa weeye u arkaan reerka dib in loo dhiso oo waxa weeye xuduudda alleh ay ku ogi karaan laakiinse in lagu cayaaro oo gabadha gurgeeda looga dumiyo oo la yidhaha waxa weeye waa isku laabanaynaa ninka iska soo fur dulmiga noocaasa xaram weeye axadka sidaa yeelana waa dembiilo weyn weeyaan midda kale waxa weeye axadku markuu wax furayo waxaa laga rabaa waa inuu is ilaaliyo waa inuu fakero oo waxa uu duduminaya waa guri islaam buu burburinayaa oo waxa uu diraya waa ilmihiisa hooyadood oo waxa uu raacdaynaya oo waxa weeye inuu kala geeyo uu rabo waa jirkii uu ku raaxaysanayay
waxaa la rabaa waa inuu xanaaqa iska celiyo waxau dhahaya sala allahu alayh wasalam xadiiskii waxaa weeye saxiixa ahaa laysa shadiidu bisuracati inama ashadiidu aladii yamlik nafsahu cinda alkhadab haye waxaa weeye libax ama daranin lama yidhahdo ninka halyeyga ah ma ahan midkii qofka isqabtaama dhulka dhiga kaalika waxaa weeye daran lama yidhaahdo ka halyey ma ahan laakiinse waxaa la yidhaha halyey ninka markuu xanaaqo isqabta markiiba oo aan tilaab qaadinba annaguna markaa xanaaqno maxaan idhaahnaa meexaan ku dhawaaqnaaba xisaab ma lahanba haye hadhow maxaa la odhan shiiqa waa xanaaqsanaayo xanaaqi wax iga dhaceene war waxaa weeye dalqadaha adaa gacanta ku haysta haye adiga waxaa lagaa rabaa inaad waxaa weeye ismaamusho gabadha muslimadda ahna waa inay barato weeye waxa iyada waxa weeye ku saabsan gurgeeda waa inay barato ilaa waxaan la maqlayaba oo isoo gaaraya waxa weeye dumar dhahaya waxaa la igu furo 3 dalaaqo ninkii waa ila seexdaa ma i qabaa haye waxyaabaha noocaasa qurunka ah hadday gabdhuhu kitaabka alle waxa weeye baran lahaayeen miyey lahaayeen ma yeeli lahayn haye gabdhihii kitaabka alle ma bartaan oo raggu ma barta ilaa wax yar naxasu mooyaane kitaabka alle hala barto oo waxaa weeye axaadiista waxyaabaha uga aadan kitaabka alle qur-aanka waxaa uga aadan waa inay gabadhu barto weeye midda kale ogaada waxaad ogaataan meherku waxau ka qayb noqonayaa xoolaha daynta ee lagu leeyahay xoolaha daynta ah ee axadka laga rabo weeye waa inuu iska bixiyo gabadhan muslimadda ah habeenkeeda loo guri keeno hadday tiraa waxaa weeye anigu ma iska ogeli ilaa meherka casri waa siin hadday waxaa weeye gabadh ay wiilku raalli ku yihiin reerka uu sidaa ku dhaqmayo wax mashkilaa kuma sugna laakiin waxaa la rabaa waxaa weeye gabdhaha xaqooda in la siiyo gabdhuhuna waxaad ogaataa waxaa weeye waa masaakiin weeyaan waa in la ilaaliyo oo xaqooda la dhowro saacad walbada ilaahay looga baqo subxaana wa tacaala war waxaad ogaataan axad kastoo adinka idinka mid a ilaahay baa hortagay subxaana wa tacaala asagay allahna wax u kala turjumaya maalinkaa ma lahan aye markaasaa waxaa lagu weydiin wax walba oo soo samayday gabarh kastoo maalin aad furtay ood ku raaxaysatay meherkii aad kaa waa lagu weydiin annagu maanta ku faanaaba waxuu soo guursada 20 dumar ah walma xoolaha waxuu soo xaalaysanayo xaqeedi aawey haye qaarna waxay sameeyaan bal fiiri saan meher loo weydiin gabadha waa la cadaadinayaa waa la dhibayaa markii la dhibo oo la cadaadiyo waxaa la oran anigu meherku siimaya ma ku furaa haye axadka noocaasa qaa'in weeye wallaahi billahi qaa'in weeyaan oo waxuu khayaanayaa waxaa waa gabadh muslimada dhibka ou dhibaya darteed oo bil ku cadaadinayo haye diba waxa maa laga sheega waxa weeye hadday lacag badan kuga xiran tahay oo meherkeeda aadan awoodin maad biilka waxaa weeye ku cadaadidid haye markii biilka lagu cadaadiy gabadha ilaa waxaa weeye meesha raashiin la-aan u joog kartee markaase waxay odhan ilaa gurga ku noolaan karto gabadhii waxay tagay in la furo marka waxa odhanaya waa ku furaya meherka ma ka tagaysaa war allah uga baqa subxaana wa tacaala gabdhaha meherada ay leeyihiin yaa waxaa weeye laga haysanin iyaga iskale xaqooda weeyaan oo ha la siiyo